soddon wariye oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayuu maanta tababar soconaya 5 maalmood waxa uu uga furmay xarunta safaaradda dawladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Safiirka dawladda Turkiga u jooga Soomaaliya iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac ayaa maanta furay tababarkani soconaya 5 maalmood ee loo furay 30 wariye ee ka tirsan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. tababarkan oo ah aqoon kororsi waxaa bixinaya khubaro ka socota telefishinka dalka Turkiga ee TRT. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac iyo safiirka Turkiga oo tababarkan furay ayaa sheegay in aqoon kororsigani diiradda lagu saarayo tayeynta iyo fahamka habtabinta casriga ah iyo farsamaynta wararka iyo barnaamijyada ka baxa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo ay gudbiso bulshada. bulshadii waxay markii hore ku tiirsanaan jirtay source ku kooban TV iyo radio uu qaranka leeyahay ama ku gaar loo leeyahay oo marka wararka ka sii baxaya ama warka laga sii deenayo mar walba yihiin warar la soo hubiyo. laakiin hadda waxaa soo baxay barihii bulshada warar kala duwan ayaa ku baxaya oo aan ahayn warar oo macnaha dadka waxtar u leh ama marka qaarkood dhibaato abuuri kara. marka anaga hadafkan leenahay waxa uu yahay in anaga oo isticmaalayna wariyaasheena khibradda leh in la sii horumariyo khibradahooda si ay uga duwanaadaan inta wararka gudbinaysa kuwa ugu fiican ayaga noqdaan oo fariimaha ay gudbinayaan noqdaan fariimo wax dhisaya aysan noqonin fariimo bulshada dib u keeni kara. Inshallah we'll be together all through this week and this training program will help you to have a better understanding of how global information world runs. sidoo kale howlwadeenno ka tirsan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo ka mid ah maanta wariyaasha oo tababarku uga furmay xarunta safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa la hadlay muuqaal baahiyaha qaranka iyagoo markaasi bal ka warbixiyay sida uu tababarkani maanta ugu furmay. waa ku faraxsanahay in tababar noocan oo kala aan helno waxaan rajaynayaa 5 maalmood ee soo socda in aan wax badan oo khibrada ka faa'iidi doono aan dib ugu laaban doono saaxiibadeena kale ee aan fursad u helin. waxaan isugu jirnaa barnaamij soo saarayaal tabiyayaal wareed iyo farsamayaqaano ka tirsan warbaahinta dawladda safaaradda Turkiga oo uga mahad celinaynaa tababarkan 5 maalin ee soo socota ayuu socon doonaa. waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano casharro wax ku ool ah. halkan tababarka waxaa ku qaadanaya dhowr waaxood oo ka mid ah warbaahinta qaranka gaar ahaan waxyaha dhanka warbaahinta ah oo dabcan ay ku jiraan ribootarada wartabiyaasha barnaamij soo saarayaasha barnaamij tabiyaasha iyo sidoo kale wardoonayaasha. qaybta farsamada ayaa sidoo kale qayb ka ah. dabcan waa xilli aad ugu habboonaa in tiimka warbaahinta qaranka ay helaan tababarkan. Liibaan Lugcad, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, xarunta safaaradda Turkiga ee Muqdisho.